Assalaamu calaykum. Soo dhawaada walaalaha ku xiran Birole Islamic Media. Waa walaalkiin Cabdullaahi Maxamed Birole. Oraadeyda maanta waxay oranaysaa guushu qarsoodigii habku ku siisaa. Guuldaraduna dadka hortooda ay kugu ceebeysaa. Guushu hooyadeed waa geesinimo. Fiidiyogan waxa aan jeclaysan inaan kugula wadaago mowduuc ku saabsan guusha. Guushu waa qofka inuu gaaro hadafkiisa kadib adkaysi iyo dadaal. Sida geedka u soo saaro mirihii ugu fiicnaa kadib daryeel dheer iyo sugitaan. maxaa yeelay samir iyo dadaal waa in la sameeyo si loo gaaro guusha. Guushu waa hanti qaali ah oo uu ku guuleysan karo kaliya qofka hamiga leh. Guushu waa miro dhadhan macaan, waxay u qalantaa in laga dhigo mid qaali ah. Guushu waxay nolosha siisaa qiimo. Waxay sare u qaadaa heerarka qofka iyo kartidiisa. Shakhsigu waa inuu ku dadaalaa sidii uu ugu guuleysan lahaa wax kasta oo ka mid ah shaqadiisa ama waxbarashadiisa, si bulshada ay u korto. Haddii la weydiiyo su'aal ku saabsan sida guusha loo gaaro, jawaabta ayaa ah iyadoo la raacayo waxyaabaha ay ka kooban tahay ee ku bilaabma kalsoonida qofka iyo awooddiisa kor u qaadidda darajooyinka shakhsiga. Marka kalsoonida uu ku qabo awooddiisa si uu u gaaro himilada uu doonayo, iyo rabitaankiisa inuu si hufan ugu fikiro intuu safarkiisa yahay inuu gaaro, oo samir iyo adkaysi yeesho markuu wax ka qabanayo dhibaatooyinka iyo hamigiisa inuu ku maareeyo wax kasta oo uu sameeyo. Sida qorsheynta lagu gaarayo hadafka iyo la tashiga dadka khibradda leh waxay muhiim u tahay in la gaaro guusha. Damacu waa shidaalka guusha. Guushu waa raali ahaanshaha nolosha. Caajisnimada iyo waxqabadkeeduna waa labada caqabadood ay ka dhex taagan qofka iyo raali ahaanshaha. sidaa darteed qofku waa inuu la dagaalamaa go'aansadaa inuu naftiisa iyo xirfadiisa horumar ku sameeyo oo lagu badbaadiyo waxqabadka shaqadiisa si uu naftiisa iyo bulshada uu kor u qaado oo uu gaaro himiladiisa.